السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسان صاحبة قيمها هي قدرين تنجمدن ملك سواد جوكتاني وليبا سكة سواد نولا سعطان هل كان هو سلطان كتيفي وحدو قبرة سلطان كتيفي وررسحان أو حقيقة كوسا ليسان يحقيه يقول دبي كجرا سوماليا عالمك قضبضا حيساها بدن ايور كان كو يجي دونان وحكمين قرية محمود سيد آدن هجامي كحجين كمامل كجوبلان oo xilka laga qaadayo iyo Ahmed Madoobe oo xaaladdu ay ku xuntahay kadib markii Saciid Dani iyo sidoo kale hogaamiye Madoobe isku dhaceen iskuna khilaafeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa ujeedka dhabta ah ee Maxamuud Sayd Aadan uu markaas ku tagay magaalada Garowe maxaa ka jira in Kenya ay kala furtay Saciid Dani iyo Ahmed Madoobe hogaamiye Dani kuguma hay kara kismaayo haddii aad taageerto siyaasigaasi sidaas waxa lagu yiri war ay markaasi saraakiil ka socda Kenya ay soo gaarsiiyeen hogaamiyaha Jubbaland kadib kulamo ka dhacay magaalada Kismaayo Maxamuud Sayd Aadan oo wararku ay sheegayaan in xilka uu ka qaadayo hogaamiye Madoobe baarlamaankana uu ku dalbaday inay mooshin xilka uga tuuraan warka ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale aan idin waxa ka mid noqonaya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo diidan inuu ka qayb galo shirka mucaaradka ee Muqdisho kadib markii xubnaha qaar ay isku khilaafeen dhaqaalihii uu markaasi Muqdisho soo galiyay Umar Cabdirashiid حسن شيخ محمود iyo Umar oo isku heesta qaabka loo qaybsanayo lacagta laga keenay Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Umar oo la dagaashan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya warka ayaan ku soo gudbin doonaa wararka kale ee eegi doonana waxa ka mid noqonaya ma laga yaabaa haddaba in doorashada dalka uu hakad ku yimaado falaqayn ku saabsan doorashada dalka iyo sidoo kale xalka looga heshii karo waxaan eegi doonaa xukuumadda oo war weyn markaasi soo wada kadib cadaadis soo koray iyo kulamo saacadii la soo dhaafay ka socda xafiiska Rooble wakiilada beesha caalamka ku dhagan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale qodobo la isku haayo warka ayaan ku soo gudbin doonaa iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa maamulka gooni u goosadka ee Soomaaliland oo la soo warinayo in deegaanadeeda ay ka mamnuucday hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale qaramada midoobay oo go'aankaasi ku tilmaamtay midan marnaba suura galaynin dawladda federaalka Soomaaliya oo loo soo diray go'aanka ugu dambeeya gobolada waqooyi ay ka qaada doonto qaramada midoobay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe noo saaro nagu soo biir daawade haddii aad ku cusub tahay bartaan ee YouTube-ka Suldaanka si share garay muuqaaladan oo saaxiibada gaarsii waxaynu ku bilaabaynaa warkeena dhinaca Jubbaland markaynu eegno Maxamuud Sayd Aadan hogaamiye ku xigeenka maamulka Jubbaland ayaa laga yaabaa in xilka laga qaado kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo Ahmed Madoobe ayaa xaaladdu ka xuntahay sida xoguhu sheegayaan kadib markii Saciid Dani iyo isagoo isku khilaafeen qaabka doorashada loo gudagalayo Maxamuud Sayd Aadan ayaa la soo warinayaa inuu iska hor keenay labadaasi hogaamiye Saciid Dani u sheegay in hogaamiyaha Jubbaland uusan marnaba dhisaynin Saciid Dani sida darteedna uu heshiis weyn la galay dawladda Kenya fariintaas loo gudbiyay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ujeedka Garowe ayaa la sheegay in markaasi uu ku saabsanaa kala furitaanka Ahmed Madoobe iyo Saciid Dani dawladda Kenya ayaana kala furtay Dani iyo Madoobe waxaana fariintaas la sheegay in wadna go iyo sidoo kale caqabad weyn ba ku noqotay doorashada hogaamiye Dani ee markaas uu ka doonayo Soomaaliya Saciid Dani kuguma hay kara kismaayo haddii aad taageerto siyaasigaasi waxaad markaasi ogaataa inaadan Jubbaland si maamuli karin sidaas waxa lagu yiri hogaamiye Madoobe kadib kulamo ka dhacay magaalada Kismaayo oo saraakiil ka socda Kenya ay la yeesheen hogaamiyaha Jubbaland Ahmed Madoobe wararku sida ay sheegayaan arrintan waxay walaac ku riday hogaamiye Dani Maxamuud Sayd Aadan iyo Ahmed Madoobe ayaa isku khilaafay qodobo qaar sida aynu xogta ku helnay iyo qaabka loo qaybsanayo kuraasta doorashada ee gobolada ee markaasi Jubbooyinka iyo Gado kadib markii Ahmed Madoobe uu sheegay in door uusan lahayn hogaamiye ku xigeenka Maxamuud Sayd Aadan oo xildhibaanada ee markaasi 16 kursi ee lagu soo dooranayo Garbaharey isagoo ay biishiisu leedahay sida ugu badan intaas kadib khilaafkan ayaa noqday mid markaasi lagu kala kacay kadib markii Maxamuud uu ka soo horjeestay qodobada qaar Ahmed Madoobe ayaana baarlamaanka Jubbaland ku dalbaday in mooshin ay xilka uga tuuraan hogaamiye ku xigeenka kadib markii uu ka soo horjeestay aragtidiisa wararku sida ay sheegayaan hogaamiye ku xigeenka ayaa u cararay magaalada Garowe gobolka Nugaal halkaas oo kula kulmay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wuxuuna gaarsiiyay laba fariin oo kala ah koow in Ahmed Madoobe cadaadiska ugu weyn oo ka heystay dhinaca Kenya sida darteedna uusan taageeri karin Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu ku heshiiyay inuu dhiso xildhibaanada Jubbaland ay noqdaan kuwo la isku hadlay karo oo Dani codka siiya qodobka labaad ee la gaarsiiyay Saciid Dani ayaa ahaa khilaafka u dhaxeeya Ahmed Madoobe iyo Maxamuud Sayd Aadan taasoo la sheegay inuu xal ka dalbaday kadib markii baarlamaanka Jubbaland ay mooshin markaasi ka geeyeen Maxamuud Sayd Aadan kaasoo xilka looga tuurayo
wararku sida ay sheegayaan garowe kulamadii ka dhacay dane iyo maxamuud saydaadan ayaa ahaa kulamo markaasi ku saabsan arrimahaas iyo arrimo kale oo looga wada hadlayo waxaana xogo ay sheegayaan in qadka telefoonka ay ku wada hadleen axmed madoobe iyo saciid dane kaasoo axmed madoobe lagu eedeeyey in ballantii uu ka baxay sidaa darteedna marnaba aysan suuro gelaynin in arrintaas uu dhaqan geliyo sida xogta aynu ku helayno maxamuud saydaadan ayuu ku soo laabtay magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose kadib maalmo uu ku sugnaa Garowe ayaa wararku waxay sheegayaan in laba aag ay kala xirteen isaga iyo Axmed Madoobe kadib markii Axmed Madoobe baarlamaanka ku dalbaday in Maxamuud xilka laga tuuro khilaafkan ayaana sabab u noqon kara in mar kale doorashooyinka uu markaasi dib u dhigo kadib markii Axmed Madoobe uu dalbaday in markaasi gobolka Gado la geeyo xubno ka socda xukuumaddiisa taasoo ka soo horjeesteen maamulka gobolka Gado iyo shacab weynaha Jubbaland wararkan kale ayaan eegaynaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna wakiilka Imaaraadka Carabta ugu magacaaban Soomaaliya ee arrimaha siraha u gudbiya dawladda Imaaraadka xogo waxay sheegayaan in isaga iyo sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isku qalaabsan yihiin qodobo ku saabsan dhaqaale xoog badan oo Cumar Cabdirashiid uu soo geliyay gudaha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa diidan inuu ka qayb galo shirka mucaaradka hoteelka Jasiire kadib markii xubnaha qaar ay isku qalaafeen dhaqaalihii uu Muqdisho soo geliyay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar ayaa isku heesta qaabka loo qaybsanayo lacagtan la sheegay in Imaaraadku ugu talagalay afar siyaasi oo kamid ah mucaaradka taasoo la sheegay in Cumar Cabdirashiid uu ku dhagan yahay in lacagtaasi la qaybiyo sida aynu xogta ku helayno ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii doorashadii looga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud aanan wax heshiis gaarin kadib markii Cumar Cabdirashiid codadkiisii uu siiyay murashax kale taasoo dhalisay in uu markaasi guuleystay madaxweyne Farmaajo oo Cumar Cabdirashiid uu siiyay codadkii ugu badnaa oo markaasi uu ku guuleystay madaxweyne Farmaajo khilaafkaas ayaa ahaa mid aad u xoogan oo soo kala dhax galay Cumar iyo Xasan Sheekh Maxamuud wararku waxay sheegayaan in taniya markaas aysan heshiin Cumar Cabdirashiid iyo Xasan Sheekh Maxamuud Cumar ayaa xiray albaabo waaweyn oo markaas uga furnaa Imaaraadka sida aynu xogta ku helna Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya taas ayaana sabab u ah khilaafkan iminka taagan Cumar ayaana lagu qalqaalinayaa inuu ka qayb galo shirka maadaama uu yahay mucaarad weyn oo ka soo horjeeda madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama oga qaabkii ku heshii karaan iyo qaabka shirarkan uga qayb galayo waxaana laga yaabaa in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya ahna wakiilka Imaaraadka ugu magacaaban Soomaaliya uu degdeg ugu laabto dalka Imaaraadka sida ila kala duwan bay sheegayaan dhinaca kale haddaba ma laga yaabaa in doorashada dalka hakad uu ku yimaado kadib markii isjiid iyo sidoo kale kulamo looga soo horjeedo doorashooyinka bay ka bilowdeen gudaha magaalada Muqdisho tan iyo markii golaha wada tashiga qaran ay ku heshiyeen in doorashada lagu qabto laba deegaan waxa markaasi soo shaacbaxay khilaaf weyn oo u dhaxeeya midowga murashaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo tan iyo markii markaasi doorashada lagu wareejiyay Rooble mucaaradku waxay soo dhaweeyeen in doorashadii Rooble lagu wareejiyay waxayna saacado markaasi u tumeen ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasoo markaasi gacmo furan marxabeyn iyo sidoo kale niyad dhisba ay la garab taagnaayeen tan iyo inta la bilaabin doorashada golaha shacabka markii la bilaabay doorashada aqalka sare 54 murashax ee lagu doortay dawlad goboleedyada way soo dhaweeyeen siyaasiyiinta mucaaradku waxayna mid ugu hambalyeeyeen baraha ay ku leeyihiin internetka taasoo dhalisay mid mucaaradka loo arkayay rag si weyn ugu qanacsan qaabka doorashada ay ku bilaabatay iyo sidoo kale dadaalka Rooble ku bixinayo balse arrinta ugu weyn ayaa noqotay markii ay bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in siyaasiyiintii midowga murashaxiinta mucaaradku ay noqdaan laba garab taageersan doorashooyinka iyo garab ka soo horjeeda ugu dambeyn garabkii doorashooyinka taageersana qaar kamid ayaa lagu qalqaaliyo lagu qanciyay inay ka soo horjeestaan doorashooyinka arrintaas ayaa dhalisay isfahmi waa xoog badan sida iminka wax ku socdaan haddii aan kulamo laga yeelan oo heshiis laga gaarin dadka qaar ee siyaasadda falaqay waxay aaminsan yihiin in dib u dhigi karto doorashooyinka Soomaaliya khilaafna ay ka abuuri karto oo markaasi Soomaaliya ay lugaha la gasho waxaana la aaminsan yahay in mucaaradka go'aankoodu uu yahay in dib loogu laabto kuraasta qaar haddii kuraasta fartay ku fiiqan lagu laabtana waxay aqbali doonaan doorashooyinka Soomaaliya sida markaas xogo ay sheegayaan wallow xubnaha qaar ayba si weyn uga soo horjeedaan sida ay ku bilaabatay doorashadu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV si share gareey muuqaaladeena warkiin halkan ayaan ku soo koobayaa nabadgelyo